wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo wehelnaya wasiir ku-xigeenka ganacsiga xildhibaano iyo gudida horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed socdaalkan wafdiga oo ku saleysna kuurgalida wadada dhismaheedu socda isku xidhaysa gobolada Daadmareed Togdheer iyo Maroodijeex ayaa waxa ay kulamo kula qaateen xarunta dawladda hoose maamulka gobolka kan degmada Salaadiin Cuqaaliye qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Oodweyne waxaana halka wafdiga kala hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdixakiin Nuur Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareed Jamaal Sheekh Xuseen Hurre kuwaasoo wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada Oodweyne waxaana hadaladoodii kamid ahaa Allah hawlo badan ka hayay burco adana go'aansaday inaad la hadashid shacabka reer Oodweyne waxaan ku soo dhaweynayaa gobolka degmadaba farkan saas oo runtii anaguna aanu muddada dheer aanu dadaalkeeda ku jirnay oo aanu dhinacayaga aanu isku daynay in aanu ka qayb qaadano wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Xasan wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir iyo xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeyo oo iyaguna ugu dambeyntii hadalka qaatay ayaa ka waramay safarkoodan iyo wuxuu ku qotomo mas'uuliyiintii horeysay baa sheegay socdaalkii wuxuu ahaa in wadadii xaaladeedii uu ku urgalo sidoo kalena dardar gelino sidii wadada u sii soconay hawsheedu wadada Oodweyne maaha markii koobaad ay isugu nimaadno waxaan marar badan ku kulanay sidii waxa weeye wadadan loo dhameystiri lahaa hawsheeda loo geli lahaa qarankan dhisayay isku xidhaysay degmada Oodweyne dhinaca Burcana ku xidhaysay dhinaca Hargeysa ku xidhaysay halkay marayso in la soo xog wareysta ay waftiga madaxweynuhu u soo diray waftigana waxa uu gaabinayay saarkiisa wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf iyo anigu ka koobanahay waxa waftigu ka kooban yahay gudidii horumarinta gobolka ayaa socota injineeradii wadada xagga Burca ka soo waday baa nala socda suldaankii iyo odayaashii kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa gobolka iyo dadka reer Oodweyne oo dadaal badan ka sameeyay xoolo ururintii oo golaha deegaanku kamid aha oo salaadiintu kamid ahayd oo dhammaan tuulooyinka iyo gobolku aad isugu xil saareen waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa run ahaantii la ismacaasiyo golaha deegaanka imika Oodweyne haddaba intii lagu guda jiray kulankaasi ayaa xildhibaan maxoo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne mas'uuliyiinta ka codsaday inuu halka kala hadlo bulshada hase ahaatee loo diiday inuu halka ka hadlo waxaana buuq iyo sawaxan fara badan uu ka dhashay goobtii uu kulankaasu ka socday intaasi kadib bulshada magaalada Oodweyne oo aad u gadoodsanaya mudaharaad ballaaran ka dhigay goobtii uu kulankaasu ka socday waxaana ciidamada sida gaarka ay u tababaran ee loo yaqaan RRU-da ay xoogooda ku muquuliyeen dadweynihii sameynayay mudaharaadka halkaas oo dad badan jeelka loo taxaabay maamulaha cisbitaalka guud ee magaalada Oodweyne oo wax ka weydiinay rabshadan ka dhacday magaalada Oodweyne ayaa noo xaqiijiyay inuu ilaa hadda dhaawac maraya 5 qof mid ka midna aad u culus yahay isla markaana uu ku jira saldhiga qalanqal yar baa ka dhacay Oodweyne soo bilaabana garan maayo laakiin waxa la keenay ilaa imika 4 qof oo dhaawacyo aad u fudud qaba oo say dhigax u badan yihiin iyo ku fitaan xaalaankaasa kuwaasoo aan dib u celiyay mid ka mid ah shacabkii mudaharaaday iyo xildhibaankiisa waxankan iyo buuqa badan ka dhashay oo iyagana wax ka weydiinay ayaa nooga waramay bal sida ay wax u dhaceen dawladda hore waxa ku dhacday udub inuu soo dadka nacsiyo inuu kala xirsi iyo xaajiba nacsiyo magaas hayse wax u dhaceen niman baad laga soo yaacay inuu qabto inta hadal ilaahay xildhibaan baa si hadal kowle xildhibaanku wuxuu wax la wada amsi xildhibaanku la fadhiisay meesha waa cabdulma hadda xildhibaanku hadla daayay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga xildhibaan Ibraahim Maxamed Nuur Dhirqaye maanta waa inoogu yimaadeen wasiirka madaxtooyada iyo wafdu hogaaminaya magaalada Oodweyne ayaa ay ka sheekeeyeen marxaladii wadadu ay mareysay markaasaan anoo xildhibaanada macay inaan hadlo waxaan ku war kelmadana odhanayaa ma hadli kartid baa laygu yiri Bashiir Cabdi Xariir iyo Waabeeye waxay yiraahdeen waa xildhibaan golaha deegaanka kelmadiisa waynu siinaynaa xirsi markay u dhiibeen xirsi markii uu hadalkii dhameeyay ayaan ku yiri mudane wasiir waxaan doonayaa inaan kelmadda jeediyo wuxuu yiri meel gaar ah golaha deegaanka ku kulmaynaa bulshadaana dooratay ay wax u sheegayeen annaguna waxaanu ahayn xildhibaanadii ay bulshadu dooratay
kelmadeedii markii la diiday xirsi afkiisa wuxuu igaga yidhi halla xidho xildhibaankan xaaladda magaalada Oodweyne ayaa haatan degan Leyla Careef Maxamed muuqbaahiyaha aragga fogee Hon Cable TV magaalada Oodweyne